ugu dambeyntiina gabar Soomaaliyeed oo wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis ayaa dhawaan waxa ay qortay buug ay ugu tala gashay caruurta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Buuggan oo ku qoran af Soomaali ayaa waxa uu si gaar ah wax u barayaa caruurta aadka u da'da yar ee hadal bilowga ah. hadda muxuu samaynayaa shaatigu iska siibaya Soomahan wuxuu yiri kaligay baa dharka iska siiba waa Fariid waa wiil Soomaha kaligay dharka ma xiran karo hooyo ay caawiso hooyo ma idin caawisaa ومعلمة ديقو محدين أجيدي وكما قعدير نور السيراد وبوق عروريد أي دوان قرتي واخرينيسا عرورتيدا يكوا أي دالين صاحباديدو سوغي مدقوريدا ديقو أي بوغان وما قعدرتي وان وينادي waxa ayna ugu tala gashay guud ahaan caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay gaar ahaan kuwa ay dhashay laftooda waxaan daneynayay caruurta Soomaaliyeed inay ku helaan chance ay ku akhriyaan buugaag ku qoran Soomaali kaliya oo Ingiriis ba lagu lamaanayn si ay luqadooda hooyo muhiimadooda ay u fahmaan sababtoo luqad ciyaalkeen hadda qaar ahaan ku inta ku dhashay first generation ka ah hantidan naga siin karno waalidiinteen hantida caruurtooda siin karaan waxa weey luqadooda hooyo iyo dhaqankoodii iyo diintoodii marka dhinaca diinta Soomaaliyeedna ma sha Allah waa ku fiicannahay ciyaalka dugsiyaal baa la geeyaa diinta waa la baraa laakiin waxaan aniga dareemayaa qaybtii dhaqankeena iyo hidaheena iyo luqadeena ahayd xogaa dadaal in looga baahan yahay marka taas daraadeed ayaa anigu isku qasbay inaan ku qoro buug af Soomaaliya buuggan waan weynaaday ayaa waxa uu si gaar ah wax u barayaa caruurta aadka u yar ee hadal bilowga waxaana ku qoran sheekooyin gaagaaban oo wata sawirro ilmaha tusinaya caruur midabkooda leh oo af Soomaali ku hadlaysa iyo sidoo kale sheekooyin ilmaha yar ku dhiiri gelinaya inuu kaligii wax qabsado oo isku filnaansho gaaro horta sheekadaanay talama ah sheeko xariira oo bilaaw ilaa aakhir leh waxa weeye sheeko tilmaamaysa ficilada cunuga qaban karo oo cadeynaysa inuu weynaado marka maxay ahayd isheeg cunuga markuu soo kaco diiniyan waxa weey waa inaan barnaa adkaarta inay sameeyaan soo bisinkan qabsadaa buu leeyahay waxyaaluhu asaga kaligiis uu qaban karo ciyaalka badan hadii la daadihiyo oo timaha loo shaleeyo oo dharka loo qabto wax kasta loo qabto hadhow mas'uuliyad ma qaadi karaan qaas ahaan wiilasha anigana ma sha Allah Ilaahay laba wiil ayuu siiyay marka waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo cunugayga inuu wiil weyn uu yahay iyo waxyaalaha uu qaban karo asagoo weyn ah wuuna ku faanayaa sheekada waan weynaadu leeyahay aniga saan baan qabanahay Fariid baan ahay saan baan sameeyaa ma sha Allah adeeqo lafteedu aan af Soomaali wax ku soo baran ayaa tan iyo markii waalidka noqotay waxay dadaal ugu jirtay sidii ubadkeeda af Soomaali u bari lahayd waxaana soo saarista buugeedan koowaad uu qoyskeeda u yahay bilowgii barashada af Soomaaliga ee ubadkeeda deeqo ayaa nala wadaagaysa laba sheeko oo kamid ah sheekooyinka buugeedu xambaarsan yahay marka sheekadan waxa kamid ah baalka koowaad ayaan ka bilaabayaa waa kana wiilkii sajaayadu ku fadhiya salliga salaada ma sha Allah wuxuu leeyahay hurdada markaan ka kaco bisinkan qabsadaa waxaan rabay inaan ku dhiirigeliyo diinta iyo waagi markuu bariyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tawakkalku la saarto sawirka kale oo aad u jecelahay dadka badana feedback fiican iga soo siiyeen waa sawirkaanay kale qoyska cuntada isla wada cunayaan marka sawirku waad u jeedaa bariis iyo baasta iyo liin dhanaan xitaa way saaran tahay ma sha Allah marka ciyaalka gacanta wax ku cunaan sida Soomaalida hore ay gacanta ugu cuni jireen marka wuxuu leeyahay sida hooyo aabbo kale ayaan gacmahayga cuntada ku cunaa qoraaga buugga deeqa nuur siraad ayaa dhinaca kale bilowday qorshe ay buuggeeda ku gaarsiinayso caruurta Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Mataana iyadoo toddobaadkiiba mar booqata xarumaha xanaanada caruurta ay Soomaalidu maamulaan caruurta goobahaasi lagu xanaaneeyana u aqrisa sheeko caruureedka buuggeeda qamiis kasta waxaan tagaa maalmo daycare baan tagaa buugga baan u aqriyaa dad badan baa ila soo xiriirayaan ciyaalka aad bay u farxaan ma sha Allah tabarakallah waan wadi doonaa insha Allah inta kulli daycare-rada magaalada ku yaalo aan ka tagaayo oo waalidiinta si u helaan chance ay ku arkaan buug Soomaaliyeed iyo ciyaalkii wax xiiseynayaan inay arkaan baahida loo qabo in ubadka Soomaaliyeed ee ku koraya gobolka Minnesota ay bartaan afka Soomaaliga ayaa haatan u muuqata mid ay jaaliyada Soomaaliyeed aad ugu baraarugsan yihiin waxaana socda dadaalo lagu doonayo in dugsiyada waxbarashada ee magaalada Minneapolis looga dhigo luqadda Soomaaliga dadaalkaasi oo haatan meel wanaagsan maraya